Daawo dayaal ku soo dhawaada qaybta wakaalada baraarug oo inagu soo gudbinaysa arrimaha iyo xaaladaha xasaasiga oo xilligan ay Soomaaliland wajahayso qurbajooga Beeshaa Habaryoonis ee munaasabada iyo kulan weyn oo ay soo qaban qaabiyeen iskugu yimid oo ay kaga arrinsanayeen arrinta xadhiga lagula kacay Mujaahid Axmed Adib oo Muuse Biixi Cabdi uu ka dhex qabtay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa. Qurbajooga Beeshaa Habaryoonis ee ariga Ingiriiska ayaa waxa ay sheegeen in Mujaahid Axmed Adib oo Muuse Biixi Cabdi xukuumaddiisa uu hogaamiyo ay kula kacday xadhig daraa oo ay kula kacday mujaahidka kamid ahaa halgamayaashii dib u soo celinta iyo gooni isutaaga Soomaaliland halganka dheer u soo galay ee ururkii SNP. markaana qurbajooga Beeshaa Habaryoonis ee dalka Ingiriiska ayaa waxa ay sheegeen in ay jabhad kale oo hor leh oo beelaha ka soo jeeda Habaryoonis oo ka cadhooday mujaahidkan uu xadhigga xaqdarrada oo kula kacay Muuse Biixi Cabdi ay mar labaad haddana ay kooxo kale oo iyaguna ka cadhooday mujaahidka xaqdarrada lagula xidhay ee ay kula kaceen xukunka uu la daala dhacayo Muuse Biixi Cabdi. Mujaahid Axmed Adib ay keentay in ay kooxo kale oo dhalinyaro iyo xoog hor leh ay ku biiraan jabhadda uu hogaamiyo taliyihii hore ciidanka ka goostay Soomaaliland taliye caare oo xilligan ku sugan deegaanada Puntland. isla markaana waxa ay sheegeen in ay tallaabada Muuse Biixi Cabdi iyo argoosiga uu ku jiro ee uu mar walba uu ku heelan yahay inuu ka argoosto isagoo oo Muuse Biixi Cabdi uu dhaqmaya qaab aad moodid cadaawtinimo gaar ah inuu u hayo Beeshaa Habaryoonis iyo waxaan soo qabsaday mikrofoonka anigu ma jecel kamaradaha ma jecel ka soo baxo laakiin arrin maanta aan ku fursan waayay ayaan kamarada u soo qabsaday. waxaan u soo qabsaday cadaaladnimada ka taagan Soomaaliland iyo halkay marayso iyo weliba halkay ka marayso gobolka Sanaag. waxaan u soo qabsaday shicibka la taagayo maxkamadda military أحمد عبدي ما هي ملكي عسكرنا ما هي قول بجاي بالعهودي سأوحى ما شوحها ما تقول كل حديا حكم ملكي سوى ملكي عقل بني آدم كيان والعيار يان طريق من مرسيو لا ربي لا صومالي أنا لما أنت واحد نقول روح ربي أحمد عبدي أنا قاعد مرسكي ولا لكن محكمة بال السود تاني والشرع بال المدي أنا أقول الله رمي من محد والله وحكى له شفتات جبهات كله وإسقى عدديسي وبحبي وأمك إلى ذلك إسقى لندن شيء وفول كورنيل أيها كم بدور إلى هذا كمان بحث وبحر مركو أركي كي إسقى كورنيل إلا السؤال جميل إلا الصورة وعمل إلا الصورة الجهاد markii halkii xaq loogu dhisnaa taaba xabsi looga dhigay xabsi ayuu ka baxay. ninka maanta leh ina Adib baaxidnaanaya ina baaxad oo maanta laba kulo ina haystaana waa u yeedhayna oo waxaanu leenahay soo gal ya ilaahay buu sheegay inta ina Adib xidhan yahay ina baaxadna ma imanayo 10 kulo mujaahid oo ku tagay وحقه دعيه يكون راتسنيان حتى يكون ولاك يطاعد يضد نمو يوطن نمو حبت بيكون راتسنيان حقا سودا يجد القرن ما ينو يدين عبن ما ينو لكن وحنو يدين تصيدا قبل كسنة غوردن أو العسكر حق إلهي باشيغي ويري كل انتا حقا ظلمي كبر دمرنا لكن حق بكل مرة تضبط يلا باطن باب جاهد اللي كحلين يعاون أو قاي هو بكسير تاني صدر كان وتقول تسابق شهادة هديت هو قاي ما شهادة وكان وأقوى يستقبل قاي إعداوي
صدم بو عبويها صدم جريين كبدن با دغالنا ku soo dhex koray xabad bay yaqaanaan xaqa hadii loo soo noqon waayo waxa la isku imanaya oo la isku wareysanayaa banaanka la isku imanaya